sidee lagu soo jiitaa gabdhaha? Muuqaalkani waxa uu gaar u yahay ragga. Marka aad aado tukaamaysi, iskool, ciyaar, xaflad iyo wixii la mid ah, waxaad ku aragtaa gabdho aad u fara badan, kuwaasoo aad jeclaan lahayd mid ka mida inaad barato. Soo maaha wiilow, haddaba waa kuwan talooyinku caawinaya si aad u noqoto wiil tayadiisu sarrayso. Lambar 1, marka hore dhis sharaftaada iyo kalsoonida naftaada. Kalsoonida iyo sharaftu waa laba tayo oo aad u soo jiidasho badan. Gabdhaha aad bay u jecel yihiin wiilka isku kalsoon iyo waxa uu sameeyo. Samee wax kasta oo kalsoonidaada dhisi kara, sida caawinta dadka, barashada xirfado kala duwan. Lambar 2, ha isbarbar dhigin dad kale. Tani kaama dhigi karto inaad noqoto qof wanaagsan. Qofka keliya aad noqon kartaa waa adiga naftaada, waana wax kuu fiican. Muuji waxa aad tahay, iska jooji inaad qof kale iska dhigto, maxaa yeelay gabdhaha way fahmayaan, si aad u weyna way u dareemayaan inaadan ahayn wiil soo jiidasho leh. Lambar 3, daryeel naftaada iyo muuqaalkaaga. Marnaba ha dayicin naftaada oo si fiican u daryeel. Maxay kugu falaysaa gabadh haddii aad tahay qof aan naftiisa daryeelin? Nadiifi jidhkaaga iyo timahaaga si joogto ah. Isticmaal waxyaabaha jidhka carfiya sida barafuumka. Waxaad xidhataa dhar aad ku soo baxayso misena kuleeg adiga. Ha iloobin inaad ilkahaaga nadiifiso. Ha ka welwelin in badan inaad xidhato dhar cusub. keliya waxaad ku dadaashaa nadaafadaada iyo dharkaaga iyo inuu noqdo mid kuleeg. Lambar 4, noqo qof la soo qaabili karo. Ha u muuqan qof xanaaqsan, murugaysan ama aan diyaar u ahayn inuu hadlo. Haddii aad u muuqato sida inaad xanaaqsan tahay oo kale, haddaba gabadhaasi maxay kaala hadlaysaa? U dhoola caddeey, noqo qof furfuran oo soo jiidasho leh. Lambar 5, noqo midka ay gabdhuhu jecel yihiin inay xidhiidh la sameeyaan. Uma baahnid inaad xaragooto, laakiin ugu yaraan waxaad noqotaa qof aqoon leh ama wax badan og. Noqo qof naxariis badan si aad ugu noolaato nolol fiican. Waxaad ku noqon kartaa qof aqoon badan adigoo si aada u akhriya waxyaabaha aad jeceshahay ama aad xiisayso, sida buugaagta, jaraa'idada iyo wixii la mida. Ka fakar riyadaada waxa aad rabto inaad noqoto. Noloshaada u muuji, hamigaaga nolosha u iftiimi. Waa wax aad ku soo jiidan karto gabdhaha. Lambar 6, isku day inaad wax badan ka ogaato iyada, lana hadal wax badan oo si fiican u dhegayso. Weydii wax ku saabsan faamiligeeda, halka ay ku soo barbaartay iyo waxyaabaha ay ka hesho. Ha ku xumayn jawaabaha ay ku siinayso, yacni waa iyada jawaabaheeda ma ahan kuwaaga. Hadda tixgeli fikradaheeda iyo waxa ay aaminsan tahay. Gabdhuhu way jecel yihiin inaad ula dhaqanto si ka duwan dadka kale. Haddii aad doonaysa inay gabdhuhu kaa helaan wax badan, tixgeli. Weydii waxa balwadeeda ah iyo sababta ay waxaas balwadda uga dhigatay. Lambar 7, raadi waxyaabaha aad iskaga midka tihiin. Haddii ay jiraan waxyaabaha aad iskaga mid tihiin, yacni iyadu ay ka hesho adiguna aad ka hesho, dabcan waa fursad weyn oo aad kula sheekaysan karta iyada, misena aad wax badan kaga ogaan karto. Lambar 8, noqo saaxiib fiican. Inaad gabadh saaxiib la noqotaa misena aad tusto sidaad u tahay qof wanaagsan waa waxa ugu fiican ee aad ku soo jiidan karta iyada. Waxaadna tustaa sida ay ugu faraxsan tahay marka aad la joogto. waxaad arki doontaa farxaddaada. Noqo mid taageera xilliyada ay xaaladuhu adag yihiin. Noqo mid jooga xilliyada ay kuu baahato. Sidoo kale dhegayso marka ay kula hadlayso. Lambar 9, ha noqon mid saayid u fiiriya. Iska ilaali inaad ku dheegagto muuqaalkeeda ama indhaheeda. Hana ku mashquulin qayb ka mida jidhkeeda. Ha wareegin agteeda haddii aanad la hadlaynin. Arrimaha noocan oo kale ah haddii aad samayso, waxaad waayi doontaa hab aad ku soo jiidato gabadha aad ka heshay. waa intaa muuqaalkeennu. waxaan rajaynayaa wax badan idinka caawin doonto. haddii aad hal erey ka faa'iiday, fadlan muuqaalka like noo saar. waxay noo tahay dhiirigelin si aan u soo badinno muuqaalada noocan oo kale ah. tan iyo muuqaalkeenna xigana waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo. guulaysta dhammaantiin walaalahay.